badan walwal ayuu ku beeray cudurka COVID-19 sababtoo ah ma jirto cid damaanad u haysata in aanu ku dhacayn waana loo dhiman karaa. fayraskan dunida oo idil ayuu ku baahay hay'adda caafimaadka adduunkana waxa ay ku sheegtay faafitaankiisa in uu yahay mid sarreeya dadkana waxa ay kula talinaysaa inay taxadaraan. inkastuu dad badan hergab dabacsan ku dhaco haddana hergabka laftiisa dunida waxaa sanadkii u dhimata nus milyuun qof. ilaa iyo iminka qiimaynta WHO waxa ay muujinaysaa in fayraska corona uu dilay 2 ilaa 5% qof ee uu ku dhacay. waa tiro ka yar tii uu dilay xanuunkii SARS oo ahayd 1 qof 10 qofba. laakiin marka dhan laga eego COVID-19 waxaa durbaba u dhintay dad aad uga badan dadkii SARS u geeriyooday. sababtuna waxa ay ahayd in dadka uu SARS ku dhacay ay si dhaqso ah xumad daran u qabanaysay isla markaana la karantiilayay. iminka xanuunkani si dabacsan ayuu dadka u qabtaa, qufac sahlan oo aadan isbitaal u baahnayn, taasoo fududaynaysa inuu degdeg u faafo. waxaa marka ugu horraysa kugu bilaabanaysa qandho, deetana qufac qalalan. toddobaad kadib ayaa laga yaabaa inay neeftu ku dhibto, laakiin inta badan xusuusna uma baahnid inaad isbitaal booqato, taasoo keeni karta in xanuunku uu halkaasi ku sii faafo. astaamahani waxa ay la mid yihiin fayrasyada kale sida hergabka ama durayga. marka uu daran yahay xanuunka coronavirus waxa uu sababi karaa oof-wareen, neefta oo kugu xidhanta, iyo in xubnaha jirkaaga qaar ay howlgab noqdaan ama geeri. waxa uu inta badan ku fidaa firirka ka soo baxa dadku marka ay qufacaan. haddii aad masaafo dhowr mitir ah u jirto firirka waxaa laga yaabaa inaad qaaddo. sida ugu sahlan ee aad isaga ilaalin karto cudurka coronavirus waa si la mid ah sida aad isaga ilaaliso fayrasyada kale. dhaq gacmahaaga. haddii aad qufacayso ama aad hindhisayso, isticmaal masar ama warqad. ururka caafimaadka adduunka waxa ay sheegeen in adduunku aanay jirin meel dahan oo aanu cudurkan gaari karin. waxa ay ku taliyeen in dal kasta uu la tacaalo si ka tarjumaysa baahidiisa gaar ahaaneed. waxa ay tallaabada ugu horraysa soo jeediyeen in la xakameeyo. khubaradu waxa ay hoosta ka xariiqeen in la xakamayn karo.